kulanti wacana wanaagsan daawadayaasha qiimo iyo qadarinta mudana oo ahaantiba meel kasoo joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkii aad uga barateen inuu idinka soo baaho bartamaha Toronto magacay waa Maxamed Daahir Xasan daawadayaal waadna ku mahadsantihiin waqtiga qaaliga aad had jeer noo hurtaan barnaamijka maanta idin hayno wuxuu ka koobnaan doonaa qaybo kala duwan waxaana jeclahay aan rajaynayaa inaad ka heli doontaan barnaamijkaas isaga ah ugu horeyn Soomaalida ayaa ku soo baaday wadanka Canada meelo badan adduunka ayay ku kala firqday kadib markii dagaalka sokeeye uu ka dhacay dalkii hooyo haddaba magaalada Toronto wadanka Canada ayaa dad aad u badan oo tiradoodu badan tahay ay degan yihiin dabcan galbeedka waa degan yihiin iyo meelo badan oo kala duwan waxa dhawaan laga furay magaalada Toronto xarunta loo yaqaano Sakina Center ama Sakina xarunta la yiraahdo waxay tahay mid runtii koobtay ama isu keentay waxyaabo aad u badan waa meel aad ka helayso waxyaabo badan oo kala duwan haddaba waxaa marti barnaamijkii maanta in haynaa qaybta ugu horeysa Sheekh Saciid Raage oo ah madaxa Sakina Center oo aan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka Sheekh Saciid ومحسن الشيخ waxaad la waxyar dadweynaha barnaamijka daawanaya uga warantaa ujeedadii aad u samayseen barnaamijka waxyaabihii aad idinku dhaliyay markaad sameynayseen iyo waxa aad filayso in ay ka soo baxdo bal waxay dadweynaha u faahfaahay horta alxamdulilah markii aan wadankan nimi aan soo qaxnay anakoo dee isxambaarsan baanu nimi caruur iyo dumar iyo rag dhalinyaro waayeel iyo oday cid walba way joogtay ayaanu ku nimi waxaanu inay markaa wadan aanu systemkiisa garanaynin nidaamkiisana aanu garanaynin waxaanu isku wada shubnay masaajidadii markaa waxaa nagala kulmay arrimo ay ka mid tahay inay caruurteena active ay tahay soo socod badan yihiin marka dadkii masaajidada gacanta ku hayay hindida iyo Pakistanta iyo Carabta waxay arkeen caruurtii Soomaaliyeed inay yara adag tahay in la maamuli karo markaanu masaajid in yar joognaba waana la dareeriyo xarawaniyo bal idinku waa yara farabadateena waana in la idin gacanta idinku hayana way adag tahay bal masaajidka noo yara baneeya waanu ka baxnay aakhirkii waxaanu qaraar gaadhnay haddaan nahay jaaliyad Soomaaliyeed inaan anaku masaajid aanu furano mashaakilka markaan la kulmay waxa weeye xitaa intaanu masaajidada furanin caruurtii Soomaaliyeed ayaa masaajidkiina wajibay ku imanayaan oo ku arkayaan de masaajidka waa quraanka akhriso shaytaanka iska naar fariiso ha ordin oo ciyaarin halkan xishood masaajid waa masaajid waa meel lagu cibaadeysto إلا إنك أنت أصين نقول قفلت مركب ودن كني أي نشوجني بعرور مساجد دحر عررته مين أقونين تبدي مركب نقصارنا وحيلا كل ما يعني عيارة فربضن الرمو وذا وناكسين يشعليين كبدي يشعلادين إن باسكتبول كي تيل كعنتا تيل لوكتا مين اللي قد باشو مين بلاي جراوند هذا مساجد كي مركب كل صحارينا إلى الدين تودي من أبقى الناية واتنا لقد دريرين أيوه marka waxay ku dharatay bariga waniyo heedhaha meenu samaysano meel caruurtana ay jeclaan lahayd dadka waayeelkina uu ku degi lahaa adigu masaajidaan dhisanay dhowr masjid baan dhisanay saddex masjid markaan dhisanay fikradii aan anigu markaa jeclaa masaajidadii lagama helin waayo de mala miisaaniyaduna way noo ogolaan weyday hadafkan la moodayay aan anigu jeclaa inaanu aragnana waan runtii ka gaari weyne aakhirkii waxa dhacday markaa inaanu helay meel Sakina aan u bixinay Sakina waxa waa xasaloon iyo degaan la dego oo degaan qofku uu dego deganaan uu qofku uu dego marka alxamdulillah meel weyn bay noqotay aad bay u weyntay waa 270,000 oo square feet marka loo eego mitiradeena waxa weeye 23,000 oo murabbac square meter in marka waxaan soo meesha way weyn tahay hadafkiina ka gaara hadafkii jaaliyado dhanna u muujiyo ayagana qodoodan u xaqiijiyo marka shan baan u qaybinay meesha waa meel ta ugu horeysa in laga helo masaajid wanaagsan oo degan oo lagu raaxaysto oo dadkii doonayay caruurtan iyo buuqooda ka fogaadaan
oo intay masaajidka soo galaan quraanka iskaga akhrisan ama daris ku qaataan ama wax ka fahmaan masaajidka ama iska fadhiiso halka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku baryo meeluu ka helo ayaan ugu talagalnay waxa inta ugu laran oo ku xiga ina duruus ay ka soconayaan meeshii oo imikaba ilaa 6 daris oo waaweyn ba ka socda ay u dheertay waliba caruurtiyo 4 cisho quraanka lagu baro waa meeshii markaas waa xaqii diinta iyo masaajidka iyo arrimihiisi weeye waxaanu ka dhex furay waxa macahad la yiraahdo Sakina Institute oo macahad Sakina macahadkana wuxuu barayaa koorsadii shariicada ayuu si wanaagsan u baraya qaybta labaad waxay noqotay qaybtii ganacsiga way hadaynu dad qurba jooga aynu nahay in lagama yaabo inaynu gaalo u shaqeyno in had iyo goor innaka inoo wanaagsan tahay marka dad fara badan oo inay gacantooda ku shaqeystaan oo day tijaarada galaan oo ganacsiga galaan baa jira kuwaasaan ugu talagalnay marka in meelo ay ka furtaan meeshu aad bay u weentay xafiisyo looyarada laga furaya xafiisyo waxa laga furaya xawaaladaha dukaamadii diracyada iyo khamiisyada iyo kutubtii iyo waxa laga furaya meelo macmacaanka iyo xalwada iyo waa laga furaya meelo lagu shaheeyo waa laga furaya in dumarku tii doonayay inay wax walba waa looga furaya meesha waxa laga furay oo ma ka banaan koob iyo konton dukaan ayaa meel qaybta ka banaan taasina wax u noqonaysa ganacsi dadkiina ay man karaan qaybta saddexaad marka waxa weeye waa qaybtan aanu u bixinay recreationka marka waa maxay waa ciyaaro waa malaahigi iyo wax iyo ciyaarihi waxa marka waa kubadii lugta iyo kubadii gacanta iyo tii basketballka iyo meel imka lagu dabaalnay aanu sameynayno taasoo caruurta markay soo galaan markay kubadii ay dhameystaan masaajidka ku cibaadeysanayaan markay yara gaajoodana de halkan bay tagayaan waxa ka soo iibsanayaan manga shake iyo dacasiir zaytuun iyo biqobi ka soo qabsanayaan marka waxaan waan isku wada lafaaqno waxaan isniri intaasiba ay isku xidhnaato waxaan inta u raacinay waxaan social services marka waa maxay waxa weeye caruurtii gangska noqotay ee doona ka daba tagno kuwa guryaha ku jira ee basementka sida u wada dubaaxinaya ee aan salaad iyo soon iyo dhikri iyo shaqo iyo iskuul midna aan dan ka lahayn ayaanu doonayna godka ugu gallo aanu ka soo saaro oo annako intaanu dhowr isku xaysan dhalinyaro aanu la fadhiisano waxa inta u dheer mas'aladan criminalska caruurtii Soomaaliyeed inaan walo Soomaali waxad mooda markuu booliisku sida u qabtayna maxkamad lagu tuurayo oo loo sameeyo record oo hadhow markuu sida meel wanaagsan u shaqo tag ama iskuul wanaagsan gal ama meel heer sare ka gaar waxa la oranayaa oo marka dhalinyarada ahayd wax intaas oo dambiba ku qorane shaqadan uma qualified uma tiid marka waxaan doonaa inaan u sameeyno looyaradii marka dadkii Soomaaliyeed ayay waaninayaan intaan maxkamadii arrimaha la gaarin waxa intaan noo dheer tashanaad ee ah waxa weeye waxaan u bixinay youth lounge dhalinyara jirta kubadana ma jecla sports activity-na ma jecla shir iyo mashaakil kuma jiraan xalaqadaha markay ka soo baxaan de xagee fadhiisan waxaan ugu sameeynay in meel video game ay ku ciyaaraan kubadiyarada miski ping pong table ba u yaala waxa yaala in bilyada u taala inta halka video games saddex TV ba u yaala marka laakiin ay maqlaan hayya ala salah hayya ala falah waxa isku shubayaan masaajidka kulligood kii ciyaaray iyo kii wax iibinay iyo kii in game ka dhex fadhiye iyo kii iska shay intuba masaajidka soo shubayaan inta waxaan noo dheeranu sameynay nidaam waxaan isnidi waxaan ka dhiganaa xalun ama meel center cid walba isku yimaadaan waxaanu kala saaray oo mashaakilka Maxamedow aanu aragnay inuu u baahan yahay in la xalleeyo hooyooyinku waxay doonayaan marka habli masaajidka yimaadaan in la fadhiistaan hablina waxay doonayaan in runtii furfurmaan ay sheekaystaan marka waanu kala saaray hooyooyinka markii albaabka soo galan jimcaha kale hooyada halkaas ay maraysaa ilantana halkaas ay maraysaa hablihii marka maxaan u sameeynay inamana wala mid waxaan u sameeynay hablo ayaga ka yara waaweyn oo laakiin diin iyo cilmi iyo akhlaaq leh oo ay kala hadli karaan mashaakilka haysto oo dhan
magacanka loola haasaaba maxaa xalaalaya maxaa xaaraana goorma inanka la hadli kartaa goormaad la sheekaysan kartaa goormaad namarka siin kartaa waxay ka hadlayaan waxaa ku saabsan arrimaha hablaha oo dhan hablaha kala hadlaya waayo hadday hooyadii iyo aabihii ay ku dhahdaan waa ceeb iyo waa xaaraan waxay ku odhanayaan maxaad garanaysa islaam baa tahay oday baa tahay marka waxaanu isdhiri bal ayagii baa afgaranaya ayagii ha laysu geeyo inamadina kadalik islaami waxaan u samaynay madbakh weyn oo shaha ay kaga soo tuurayaan sambuusaha ay ku laalaabanayaan qoraac iyo wixii kale ku samaysanayaan halkaan iska sheekaysanayaan odayaashii waxaan u samaynay meel ay ayagu isku wareysaan ayagoo wadankiisa ka wareysanaya oo ka waramaya ayagoo iska shaahaynaya ayaga oo wixii jaaliyadda Soomaaliya ka dhacay ka sheekaysanaya ayagana waanu u samayn ayaguna meel iska fadhiya marka waxaanu doonaa centerkan inuu noqdo center familigooda markuu uu yimaado mid waliba uu meel helo waxaasoo dhan ayaan u samaynay dhalinyarada kaba soo qaad dhalinyarada waxa u socda 16 program baa u socda waxyaabihii lagu kalifayna sakiina aanu samaynay waxay ahayd markaanu yaareen waxaanu jeclayno kubadda ciyaaro inaanu wadaad noqono waanu jeclayno ilaahay ka cabsano oo de markan kubaddan soo ciyaaro in halkan aanu quraanka akhrisano waqtigiisa wakan de subhanahu saa'a li nafsik wa saa'a li rabbik yani saacadna ilaahay saacadna adigu naftaada u raaxay waanu laakiin waanu weyni waxa marka 2003 ayaa fikrad bay ku dhalatay fikradii waxay inaanu bilowno waxa raado Muslim Basketball Association nu bixinay NBA dii ilaahay uu barakeeyay in halkan aan u soo guuray waxaanu ka furay farac iiska ah iyo farac waska imika inama ka furay Ottawa iyo war farac kalimka Calgary laga furaya NBA-dan 2003 markaanu bilownay ragiina dhiirigeliyay runtii nacaawiye markaa may jirin Abu Hurayra muu jirin Darl Hijra muu jirin in waxba may jirin 2003 mana xitaa Abu Hurayra duu jirin meel yar buu ku lahaa mawlac yar buu ku lahaa iiska laakiin masaajid muu jirin waxaan 2003 2004 waxaan noo yimid laba nin oo aad qiimo oo wanaagsan oo basketballka ciyaar jooga oran jiray Hakim al-Ajwan oo nin qiimo la iyo nin saaxiib ahaayeen oo oran jiray Mamadou Anjay labadana saaxiib baan ahay waxaan ku wari waaniyo dhalinyaradii ku Soomaaliyeed jarbe ka sii daadanayaan kubaddana aad bay u jecel yihiin noo kaalay waxaan u jaray ticket first class labada wadadba labada sheekh baan labada ciyaartoy baan soo dhoofin waan xasuusanay markaan uu ka soo degay madaarka Maamud Haji Hakim al-Ajwan ayaa intuu salaamo buu yiri Sheikh Saeed your treatment is better than NBA treatment xiri muaamalada noo soo dhaweysay sida NBA da yani anaku waxaan u bixinay marka M wa Muslim B Basketball A Association NBA wuxuu yiri marka N wa NT wa National Basketball Association wuxuu yiri NBA da ka wanaagsan oo dad salaam baan ugu soo dhaweyseen wanaag marka si wanaagsan arrintii marka waxaan uga jeedaa tiibaanu soo qaadnay isakiin dhex dhignay fikradii kale marka waxaanu rajeynaa xitaa dadka Yurub jooga iyo dadka Mareykanka jooga inay ayadoo kale fikradaas ku daydaan waxdaanay already lahaynba taasoo kale marka sida ayaan u asaasnay Sakiina Maxamed oo dan ka jawaab su'aashaadi runtii waxaan ku leenahay Sheikh Saeed waxaan ku leeyahay mabruuk aad iyo aad baad u qeexday waxaan moodaa halka uu u dhacay inuu u baahnayn in cid ka dabaadasho ama ka nacadasho ama ka wax kale ku biiriso wuxuu ahaa hadal yani aad qeexday dadkuna maanta waxay tahay inay ka faa'iideysanayaan waxaan jeclahay intaan u gudbin su'aasha ugu dambaysa in aad ku soo dhawaataan qayb kale oo ku saabsan xagga isboortiga daawadeel saaxiib yaal waxaan booqasho ku nimid goob ay ka socoto tartan aad u ballaaran ama barnaamij loogu diyaar garoobayo tartanka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee kubadda kolayga oo sanad walba la qabto oo magaalooyinka qaaradda Afrika gaar ahaan bariga iyo bartamuhu ay sanad walba ku tartamaan sanadkaana waxaa loo diyaar garanayaa dhowr magaalo in ay ka qayb qaataan tartankaasi wuxuu ka dhici doonaa waddanka Tanzania isla markaasna kii ka horeyna wuxuu ka dhacay waddanka Uganda caasimadiisa Kampala haddaba goobta la isugu yimid oo dhalinyarada faraha badan ay ku diyaar garoobayso waa magaalada Garowe ee Soomaaliya gaar ahaan
caasimadda puntland oo iyadu u diyaar garoobaysa dad ka socda sida ay uga qayb qaadan lahaayeen tartankaasi kaas oo ka dhici doona waddanka tanzaniya haddaba barnaamijka oo saan sheegnayba mar walba la qabto magaalooyin badan oo soomaaliya ayaa ka qayb qaatay waxaa hareerahayga fadhiya dadkii sida weyn looga yaqaanay beesha soomaalida haddii ahaan lahayd dhinaca ciyaartooyga haddii ahaan lahayd dhinaca mas-uuliyiinta kale iyo dad kale oo fara badan oo u yimid inay taageeraan horumarinta iyo calanka soomaalidana kor loo qaado haddaba waxaa garabkayga madax fadhiya cabdirashiid xasan xirsi oo loo yaqaano bakin waa abaabulaha ama iskudubaridaha barnaamijkan isla markaasna waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee kubadda cagta soomaaliya waxaana uu hadda u diyaar garoobaya isagoo cagta ayuu kolay haddana hayaa ama kubadda gacanta cabdirashiid kusoo dhawow muuqaalka soomaalida ugu horrayn bal ujeeddada barnaamijkan u qabateen ama u diyaar garoobaysaan wax yar dadweynaha faahfaahay aad baa u mahadsantaa maxamed adiga iyo telefishinka maqalka iyo muuqaalka runtii maxamedow waxaan rabnaa magaaladan toronto dhallinyaradeenna mar kasta waxaa laga sheegaa inta xun oo xumaanta ah dhallinyaradanba waxaan rabnaa in moralkooda iyo taalantigooda in la gaarsiiyo si ay ugu helaan opportunity oo adduunka ama jaamacada ha noqdaan ama ha noqdaan kooxa la qaato marka arrintaas ayaa u kaliftay inaan dhallinyaradan soomaaliyeed inaan u abaabulno ay ku ciyaaraan magacaas magacuna haddaan magac la helin lama geli karo ciyaaraha waa in la helaa magaalo magacaada noo ogolaata magaaladan baa ii ogolaatay aniga waan gartay si weyn baad u sheegtay cabdirashiid waxaa jira barnaamijkan oo kale marka la qabanayo dabcan wuxuu u baahan yahay dad badan inay ka qayb qaataan yaa gacan kugu siiyey ama aad rajaynaysaa inay kaa gacan geystaan annagoo og sanadkii horena inaad ka qayb qaadatay oo gaalkacyo aad geysay kaalinta wanaagsanna ay galeen oo ay semifinal u soo gudbeen sanadkan maxaad rajaynaysaa ayaase gacan kugu siinaya maxamed aad baa u mahadsantaa su-aashaan su-aal aad muhiim u ah waaye macnaha waxaa la yidhi wax hadda oo dhaqaalo aan hayna ma jiraan runtii sanadkii hore dad ganacsada ah ayaa aad noo taageeray haddana aan jecel nahay inaan taageero ka helno sida amal goolis doctor xaashi doctor lawyer dooli iyo dad kaloo ganacsadaa marka runtii waxaan rabnaa iyo ummadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada toronto iyo qaaradda kanada iyo america oo dhan waxaan rajaynaynaa in dhallinyaradan soomaaliyeed la siiyo jaaniskan iyo opportunitygan si ay u ogaadaan taalantigooda iyo ciyaartooda aanan magaca xunna loo bixiyey aan uga baxno dhallinyaradan ugu helaan jaamacado iyo kooxahan america inay taalantigooda ay gaarsiiyaan waa runtaas si weyn baad u qeexday runtii hadda waxaan jeclahay bal inaan su'aal iyo laba weydiiyo laba qof oo ka tirsan dadkan gaar ahaan jibriil maxamuud jibriil oo si weyn looga yaqaano beesha soomaalida jibriil waxa uu ka qayb qaataa waxyaabo badan oo iyagu had iyo jeer khuseeya soomaalida gaar ahaan marka la eego horumarinta isku soo dhoweynta bulshada ka qayb qaadashada iyo waxaas jibriil see u aragtaa barnaamijkan isaga waa barnaamij istayla in la taageero walaalkay bakin shaqo fiican buu hayaa waa barnaamij istayla in la taageero waa arrin aad u fiican annagana qalbi inoo dhisaysa saad ula socotaan dhallinyaradeenna north america aad bay u dhibban yihiin haddii qof kastoo isxil saari lahaa uu qaban lahaa rubuc shaqaduu bakin qabtay iyo dhallinyarada kale dhallinyarada haya dhibaatada nagu haysana ma haysateen so waa arrin la taageero in gacan furan lagu taageero waaye garab la siiyo kulligeenna waa garab taaganna waana u ducaynaynaa aad baan u mahadsantahay maxamed daahir aad baad u mahadsantahay jibriil runtii shaqo weyn baad ka qabataa had iyo jeer bulshada bakinna waad maqlaysaa sida loo taageeray waxaan jeclahay inaan su'aal weydiiyo macallin bruno oo si weyn looga yaqaano beesha soomaalida ahna madaxa ama tababaraha kooxda ilaamos oo basketka hawl intee leeg baa la geliyey barnaamijkan wallaahi waxaan u arkaa hawl weyn la geliyey ciyaartooydan oo ciyaartooy mustaqbal ku lah kubadda koleyga marka waxaan rajaynaynaa maartay inay guul weyn ay ka soo hoyaan ciyaaraha lagu qaban doono magaalooyinka Tanzania marka waxaan leeyahay kusoo guul aan leh waa tahay runtii aad baa dadku badan yihiin ka soo qayb qaatay doctor cabdullaahi xasan mahdi waxaa si weyn looga yaqaanaa bulshada soomaalida waana nin isboorti iyo ciyaartooy iyo wax walba ahaa cabdullaahi waad u jeedaa barnaamijka dhallinyarada calanka iyo ummadda kor in loo qaado maxay kula tahay annaga haddaan nahay reer toronto aad iyo aad ugu faraxsannahay in koox masalayso magaalo ka mid a magaalooyinka soomaaliya dhowr magaalaan rajaynaa kulleyba inay ka qayb geli doonaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan aaminsanahay inay dhallinyarada soomaaliyeedna ay mustaqbal
ku yeelan karaan weliba basketballka yurubta waa laga yaabaa inay nooga fiican yihiin soccerka laakiin waxaan aaminsanahay cultureka oo sportiga basketballka wuxuu ku xoog badan yahay north america marka waxaan rajaynayaa in dhallinyaradan ay guul soo hoyaan taada kaleentana sportiga guushiisa keliya ma aha as long as ay ilmaheennu ku mashquulsan yihiin sporti iyo wax wanaagsan oo caafimaadkooda wanaagsan isla markaasna ka soo jeedinayo waxyaabaha xunxun aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in la taageerana aad iyo aad ay u habboon tahay waa mahadsantahay maxamed gabagabadii ugu dambeyntii Dr. Xasan Culow maxaad leedahay aad baad u baahsantahay waxaan u mahad celinayaa miidiyaha ka soo qayb gashay codka beesha iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay aad iyo aad baan mar labaad waxaan ku faraxsanahay inaan aragno dhalintayadii halkan ku barbaartay ama ku dhalatayba inay maantay u heelan yihiin inay waddankooda magaciisa ay ku ciyaaraan ay kaga qayb galaan areenada adduunka meelaha la isugu yimaado waxaan arkaynaa horeyna mahmaad u ahaan jirtay jirka caafimaadka qaba ayay ku jirtaa maskaxda caafimaadka qabta sidaa awgeed aad baan u soo dhawaynaynaa waanan taageeraynaa waxaa ku jirta dhalanteena anigu hadda labo baa iigu jirta oo aan dhalay marka sidaa awgeed waxaanu leenahay guul waanu ku faraxsannahay qabanqaabiyaha soo qabanqaabiyey walaalkeen bakil waa mahadsantahay waa tahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin runtii dadka ka soo qayb qaatay guddiga iyo barnaamijka iyo tababarka iyo dhallinyarada intaba iyo waalidiinta intaba waa muhiim siday u yidhaahdeen mas-uuliyiinta meeshaan jooga in laga qayb qaato barnaamijyada caynkan oo kalea cabdulaahi xasan tuke cabdulaahi xasan saalax oo loo yaqaano macalin tuke waa rugcadaaga isboortiga tababaraha maxaa barnaamijkan ka leedahay barnaamijkan aad baan u taageeraynaa sida wanaagsan oo dhallinyarta loo diyaarinayo in barnaamij loo suubiyo ay ka qayb galaan dhiirigelina u tahay aniguna gacanaan ku siinayna arrin aad u fiicanna waay waa tahay aad iyo aad baad mahadsantihiin daawadayaal bal iminkana wax yar dhallinyarada ka qayb galaysa barnaamijka oo tababarka aadaysa bal iyagu afkooda hayna kula hadleene daawasho wacan halkan waa muuqaalkii soomaalina omni 2 salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay runtii si weyn baad u qeexday marna lagama bogan karo barnaamijyada quruxda badan waxaan leenahay taga oo ka qayb qaata waxaa kaloo jirtay toddobaadkii dhoweyd ama sabtidii inaga tagtay barnaamij aad u qurux badnaa oo ku saabsanaa xuquuqda qofku inuu ogaado ama rightska waddankan maxaa yeelay mas-uuliyadna waa ku saaran tahay oo waajib baa lagugu leeyahay adiguna xuquuq baad ku leedahay marka bal taasna anagoo barnaamijyada dambe kusoo gudbin doona bal waxay dadweynaha u soo gudbi waxay ahayd horta wuxuu ahaa barnaamij loogu talagalay ilaa 600 oo qof inay yimaadaan alxamdulilah dadku way isqoreen inta imika noo qoran yani inta qoran ee timi waa number weyn buu ahaa number aad u weyn buu in barnaamijkan ujeedadu waxay in dadka Soomaaliyeed halkan jooga in xuquuqdooda la baro haddaan tusaale ku siiyo maxamedow laba inan baa jiray inan gaalo cad iyo inan Soomaaliyeed inankii labadiiba way meel bay u carareen dukaan bay galeen waxbay doonayaan soo dhacno baastoolad bay soo saareen labadii marka maxkamadii la keenay inanka gaalkii record buu leeyahay wad garanaysa marka yani wuxuu leeyahay dambiyo horu galay inanka Soomaali wax dambiyo galay ma jiro waxa dhacay markii maxkamadii judhi inankii cadada waa dhinac basaga loo duway waxa lagu xukumay waxa one count oo ah inaad qalad samaysay ama inta marka waxa laga doonayaa baa intaas oo community service inaad samaysay inankii Soomaaliyeed laakiin 9 baa lagu xukumay 9 count oo kala dambi ayaa lagu qaaday inankii marka way la go'day mustaqbalkiisu wuu baaba'ay waalidkiisu way ku daba balanbaleen asagii the future male marka waxa weeye cadaaladan oranaysa inankayra Soomaaliyeed madow ee muslimka ee qaxoontigana sida loo galo inankan cadna sida albaabka la mariyay waa dhowr goor community-ga ka soo shaqeeyo soo noqo nidaamkaas waa maxay ma cadaaladda carruurteena jeelka ka buuxaan wax kale uga buuxaan wax yar oo bilaa macno oo simple markii dadka noo imaadeen aan dadkan kala hadalay arrimahaasaan soo bandhignay waxaanu leenahay war ma cadaaladda xageebaan u maraa laakiin xageebaan ka toosinaa goormaan xaqna inuu hadalo
marka ujeedaduba intaasay ahayd waanu ka go'aan waxaan u maleynaynaa in meel fog aan arrinta aanu kaga soo hadhnay waxaanu rajaynaynaa sanad walba inay noo noqoto joogto oo qof walba baro xaqaaqa ama xuquuqdaada baro know your right sanad walba caynkaas maxamed